wiilkiisii oo gabar loo maleynayay oo muddaba codkeedii weynaa sidii ninka camal u hadlaysay maskiinkan ileen gabdho loo wada dhalay gabadhan cidda ugu weynaa maanta wiil hormuudkeeda dhinaca wiilka u badnaa maba lis dhehaynin laakiin gabadhii markay xanuunsatay oo isbitaalka la geeyey dhakhtarka joogay dhakhtar isbishaalo ahay wuxuu yiri maxaa mar hore loo keeni waayey gabarna ma ahan waa wiil marka waxay u baahan yahay in operation degdeg lagu sameeyo qaybta qaliinka ayaan gelinaa isla markii waa u saxiixay aabaheedna waa saxiixay qaybta qaliinka lagu aabaheedna gabarba wiilba ma haysano gabdho loo haysto oo wiilba ilaahay ka baryay laakiin wiilkiisii ilaahay baaba waa kaas hooyo waxa waaye wiil uu dhigo wiil uu ahaado alxamdulillah shukr rabbil caalamiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadaad baa hadda kor waxaa jiri jirtay in iska maskiin ahoo iska wadaad horeer dhib ahayn ilaahay dhaqaalana siiyey xaaskiisii gabaray u dhashaa haddana gabar kale u dhashaa haddana gabar kale u dhashaa haddana gabar kale u dhashaa adiga 6 gabdhood ayaa ilaahay siiyey kuma nicino ilaahay nimcada ku siiyey alxamdulillah oo yiri wuxuu ahaa nin iimaan leh alxamdulillah laakiin uu iska rabi lahay hal cunug oo wiil ah laakiin ilaahay ma siin ilaahayna waa kulmay agtiisina waa jecel yahay xaaskiisana aad u jecel yahay ayadana aad u jecel waa laba qofood isku kalsoon oo ilaahay yaqaanay alxamdulillah marka waxaa daba taagan walaalkiis oo wiilo leh oo rabo mar walba uu leeyahay hadduu walaalkay dhinto xoolahan gabdhahan kaligood ma lahaanayo waa la lahaanaynaa anaa la lahaanayo subxaan allah maalin maalmaha ka mid ahaa wadaadkii maskiinka ahaay ayaa nin saaxiibkiis ayagoo wada fadhiyaan wuxuu yiri maxay ahayd ole niyahow ma iska guursatid xaas kaleete saad ilaahay hadduu wiil ku siinayo markaasuu wuxuu yiri alxamdulillah waa nimcaysanahay tala fiican waay taasna way fiicantaa laakiin waa yeela naqda qofka aragtiyaaba wuxuu yiri waan joogaan gabdho ku rabaan gabdho ku ogolaanayo maxaa u diidaysa qof fiican tahay dhaqaale ilaahay ku siiyo wuxuu yiri xaaskii in qalbiga ku xumaato marabi in qalbiga ka jabto marabi iyadan la tashana haday ii ogolaato waa guursanaa ninsaas dhaam jirta aska jirta adduunka ku xinool yahay alxamdulillah bas waa soo baxiyay wuxuu yimid xaaskiisii wuxuu yiri in saas sameeyaa rabaa maxay kula tahay waxay tiri tawakkalna ala allah wa kafa billahi wakiila hadaa jeclaysatay tiri hortaada khayr allah dhig gadaashaada khayr allah dhig muku nacaayay tiri aniga waa runtaa haddaba ilmihii gabdhahayga wiil la dhashay helayaan maxaan ku diiday tiri kurso waayo yiri wiilka ninka saaxiibkiis ahay wuxuu yiri intaan ka bilaabaa aniga qof waayeelan qof weynaan ahay gabar ma doon karo islaan oo gabdhaha doontaa jirto islaantaas u tagay islaanta markuu u tagay islaanta intuu soo tagay sheekadooda walaalkiisa dhageysanay islaantii markuu u tagay oo u sheegay waxay tiraana ku raadina xogaa garo lacagtiisa siiyey walaalkiisa intuu gadaal ka soo wareegto oo islaanta u tagay yiri ha u raadin naag dhan ha u raadin lacagna uu siiyey islaanta wax ma raadinayso soo ugu sugaa islaantii u yimid wuxuu yiri aaway qofkan ka sugaa weli lama haayo tiri waa iska soo tagay walaalki wuxuu yimid saaxiibkiisa soo la fadhiyo wuxuu dhahay islaanta u tagay wax ma haayo walaalkaa ha u tago lacagoo siiyey walaalkaa tagadaashaa ka wareegta uu tagay inaad guursatid inuu diido yaa dhaxalka gabdhahaagii xoolahaagii wuxuu rabaa gabdhahaagii inuu la dhaxaltamo markaasuu yiri masaasaa wuxuu yiri anaa saaxiibkiisa soo boodo yiri anaa ku raadinaa haye hadalkii haddana soo gaari fagoo soo yiri islaantu u yimid wuxuu yiri ma ogtahay yiri inuu ninkaagii walaalkay ahay kula guursano waa ogahay tiri ilaahay hortiisa khayr allah dhigo waaba ogtahay miyaa haa ku dirdiro islaam wuxuu dirdiraa waa soo baxay intuu kasoo wareegtay wuxuu yimid walaalkiisa wuxuu yiri walaalo iga raali noqo qaladan sameeyey anaa u tagay naagtaaseeti maxay ahayd toole igan raali noqo anaa ku raadina waxban raag ha ii raadina yiri naagbo ama u baahnayo dhahay gabdhahayga iyo naagtaydanba ku imaan qabaa ma bariba naag idhaaf wuu soo baxay wuxuu sir adduunya kaa soo urureertay waxaad samaysid ma lahane walaalkeen hadduu naag raadsanayay ma joogayay maxaa samaysaa wiilkiisa weyn wuxuu ku yiri gabadha cid ugu weyn maryama shukaanso marka maxay ahayd toole maryama leen xamiida lahay xamiida shukaanso xamiida lagu daraa okay
حميدة أودي جحرة وروحاس حير نين أكتر عد كذا وين يا نين ناكم ما يكوير أبو يقرأ فير تاس مرة وحير دحرك أحكي لي دحرك أنا قاعدني حولها اسمها إلا بريجز دبال ما تاي أقولوا هنقولي هذا كدلا هيوير وهالوري أشياء حلا حميدة وحروه هيري إن القدرة ويكي ما ديزن وحيري ما دام أدرته ويركو ما ديزا قبليدا لسويدنا أيضا لو يمد أيضا حيستر عدكا وين نين أكتا صواد ضغطا قفك أقول ما جرتيه يا بل إسكا أقولوا واي أقولاتي markii faraanti gariska lagu sameeyay oo doonashada la sameeyay kadib 3 maalmo kadib xamiida way xanuunsatay xamiinta xanuun aan ka bixin waa la orday abeed wala orday isbitaalka markuu geeyay ajiib ilaahay aawe dhakhtarka markuu geeyay dhakhtarku waa baarbaar wuxuu yiri qofkan sida u maleynaysiin ma aha mar in la keenay ahayd oo amaliin lagu sameeyo oo qaliin lagu sameeyo haddan ku sameynahay ee kaadiye wixii la qoray قرفة العلمية قلكي أو حالة جديدة أو قليل كأه ساعة كدب أيها السود بحشي اخترق حوشي الحمد لله وينور ماتي وفي عني هاي حميدنا ما هنوده مقعك بدلي حمادة واي يا حميدة ما هني حمادة واي أرسل حجران مركز وحده هاي قبل أملين السجري هرمت كده هل كاس أبطناه يري إلهين وكأبر وجده وجري فهمت marka wuxuu yiri wiil nin ahaan oo ilaahay u abuuray nin ahaanteen xoogeedii noqotay inta waxba ma ahan laakiin inta ay u badatay marka wuxuu yiri meeshan waxaan xiran u jeedeen ma ahayn oo dhahay waxay ahayd uu yiri alaabtii oo xirneed marka qaliinka lagu sameeyay wuxuu yiri taasay ahayd marka ma ahan uu yiri wiilkaaga wiil waa yiri gabar ma ahan hadda gabar u haysto wiil waa isku ugu حميدة محا إلهي كدي حمادة الله كدي الحمد لله أذاركينه ساسو حلوة إلا منين محا صوبحي ما شاء الله لبعتن جرأة مصن منين لبعتن جرأة صوبحي دورة مات نينكي نصيب له حواي أو اسكسور بدن حواي إلهي حواي غفور رحيم يا ربي جاي وصينا لمقته والله وهو قصة وفي عن إيه ودك إيه أنا جيست أنجع على استيبنا قتل حميدة حمادة اسكو بدش الحمد لله حواي صبرا سركتكيس هلا وإذا أنا هو صبر صعبان أبى صبر صنوها الحمد لله أنت ساقصدان كأكتا إن شاء الله خير بعد كتجاية عافية شير لايك سبسكرايب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.